samayn doonaa cashirkeena wuxuu noqon doonaa asliyanba hore waxaan u soo aragnay cashirkii ahaa sidee order socday loo bedeli karaa order aad gashay oo lacag ku socoto ama khasaare ku socotid ama faa'iido ku socoto labadaba sidee lagu sameeyaa modify oo wax looga bedeli haddana waxaan qaadan doonaa sidee new order loo qaataa adoo isticmaalaya as computer as mobile oo ku soo xigta stop loss kayga meeshaan dhigan lahaa iyo tag profit lacagtaasina waxaan ku galayaa asbuy baan u galayaa ila soco hadii labada lacagood isku qiime ay istaagaan ma qaadanayo sababtoo stop loss iyo tag profit isku one position ma jiro adduunka asbuy baan ku galay lacagtaasi orderkii ma accept gareynaysaa waa laga sugaya yes waa accept gareynaya qeyri khasaaro waa ku qabaa faa'iido khasaaro waa ku qanacsanahay orderkan wuu dhacay baa lagu yiri has been done lacagta trade gareysan maxay yihiin USD share waa hadii aad soo calculation gareysay faa'iido aragtina ka sameeyay halkaas iimaanaysa lacagta saasa loo sameeyaa order cusub marka isticmaalaysaan computerka ama marka isticmaalaysaan mobile lagu soo dirayo signals oo kale matalan baa lagu soo diraa wax ka kala idinki laabay saacada galaysa suuqa 15 daqiiqo hal saac 4 hours 30 minutes 5 minutes 1 minute adeeg ku taala 15 minutes hadaa tiraahdo suuqa saas ku noqonaya hadda halkaas aan maraya away meesha ku aadan yahay waad aragtaa halkaan sidoo kale halkaas ku soo dhigaa price fahanka aad fahantaan horay ayaa u socon kartaa new order sida loo qaato new order hadda lacagaha sida u qaato volume-ka waa 001 volume-ka lacagta aan ku galnay waana muhiim jiddan taasi stop loss iyo take profit waa sameyseen hadda aan sameeyna mar kale new order as a sell iyo buy sidaan ku galaynayna oo qaadaynayna new order ka saka dooranaysa lacagta kaliya dooranaysa halkan lacagaha fur maxay tahay lacagtaan dooranayno lacagtaan galayna ma lacagta majorka imsa lacagta waa major lacagaha waaweyn oo iyo lacagaha kala majorka aan ahayn waxaan ku faahfaahin doonaa casharada kale oo soo xigi doona hadda waa order kaliya sida loo qaatayna lacagaha majorka mid kamid ah hadii aan doorto waxaan doortay euro USD oo lacagtaas waxaan sameysanayaa stop loss kiga ka taagnaado labada lacag isku mid ma noqon karaan stop loss ka take profit waa inuu sareeyaa oo faa'iidada hesha ku cadeysa halka okay inta bibisa faa'iido asbuy ku gal okay isugu kii yihiin labadooda ama ku gali kartid asbuy ma aha suuqani labada order ay saaran kala weynay oo ku noqon marka oo modify samee okay marka tiraado ku soo celinaya kadib saxo hada kor soo ama iska ilaali haka okay saa marka suuq yahay oo suuq furan uu yahay halka pending order hadii kala waa gelin kartaa suuq furan waxa laga wadaa extension macnaha extension markuu suuq yahay waa suuqii furna oo soo diray signalka uu soo dhawiyaa markaan faa'iido badan yahay suuqa la socodka wanaagsan suuqan waa sell si ku garanaysa waa sell markuu ka diido mar dhowr mar ku celceliso suuqaasi soo gaanshahaaga ay ku xiran tahay hadii lacagta aad soo news galayso wait suuqan sell baa loo galayaa ma accept garaysay yes laakiin markay lacag kugu jirto rasmiga ah mar walba wuxuu ku siinayaa ma accept garaysa ama khasaare gal ama faa'iido gal dhac uu dhacay dhan yes
okay brokerka isticmaalaysa hada yaqaan hadii MetaTrader 4 ku jiro computerkaaga ama mobilkaaga waa sameyn kartaa suuqan oo deemaado ma 5 minutes ba ma 30 minutes ba anaga inoo taal taasina ina ogaataan waa muhiim jiddan okay charter hada abuurayso waa halka okay order kala soo sameeysaa hada isweydiiso su'aashaas click si kaliya lacag soo dooro halkan fur lacagahana waa kuwana USD ka oo kala sameeyaa hada istiraado waa sigaysa halkan waxa ku cadeynaysaa profit kaaga marka ku qasaaraysan waxa iimaanayso suuqa inaad la socon qasaarahan halkaas uu ka yimaada badanaaba waa fahantay order cusub sida loo qaato sidee orderkan oo socdaba aan u bedelan karaa hadii jihad isbedeshay right click modify uu ogol yahay highlight uu saaray ama delete ba modify marka ka joogtid waxa bedeli kartaa take profit kaagi iyo stop loss kaagi waan soo aragnay modify position orderkan pending baa iska gelin kartaa oo gid jooji baa dhigi kartaa laga joojiyo ka suuqana saan waxa marka laga joojiyo oyna ahayn waxa dhigi kartaa ha furnaado suuqa oo waxa sii dhigi kartaa war ha sii furnaado modify ka dhig oo modify gray wax ka bedel ama waxa kadib aad sameysay intaas asbay baa ugu jirtay you accept this new yes inta soo joojinaya dhan iyo sidee modify lagu sameeyo order hore u socday sida darteed fi amaana lagu